Wasaaradda horumarinta beeraha ee Gobolka Togdheer ayaa maanta kulan la qaatay beeralayda kala duwan ee Gobolka Togdheer. Kulankaas oo ujeedkiisu ahaa sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha ayaa ka qabsoomay afaafka hore ee Wasaaradda horumarinta beeraha ee Gobolka Togdheer. Ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan ay kala qaateen beeralayda kala duwan ee Gobolka Togdheer. Isuduwaha Wasaaradda beeraha ee Gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Gure iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda beeraha ee Gobolka. waxaanu idinku yeedhnaa maanta bishii waa Maarch waxa weeye 2022 sidaan sheegayna waa waxaynu saaka furaynaa qodaalkii fasalka guga 2022 waxa weeye beeri baynu bilaabaynaa qodaalkoodii 23 meelood baynu ka bilaabaynaa oo la beeri jiray beer baa ugu horeysa qoyta kaba dheere abeesalay boodley booramo markan ku soo noqdo aadan saleebaan aw maageer wadada dheer wadada godorka kala dhac haqaya malaas booramo balle xagaa iyo wixii la mid ah waa saddex iyo qurac dheer waxaynu bilaabaynaa oo maanta marka laga bilaabo qodaalkii fasalka guga ee 2022 waxaynu leenahay oo laynaga rabaa 7,000 oo beerood baa gobol ku yaalo roofalata ah iyo 1,000 beerood oo beerbiyood iyagu waa mahadsan yihiin mid walba waa mahadsantay maalin walba 15 gaari baa laga soo guraa oo magaalada khudaarteen ku cunaa hadday tahay tamaandha xabuubkii kamsarihii basashii kaabashkii baamiyihii iyo wixii la mid ah iyo dhirta geed midhoodka ah hadday tahay cambihii hadday tahay liin macaantii hadday tahay liin dhanaantii saytuunkii marka maanta waa maalintii raashinka weeye haruurkii baa laynaga rabaa inaynu beerno galadii baa laynaga rabaa sidaynu beeri jirnay digirtii sisintii waxaynu kaloo maanta ku kordhinaynaa ciddii awoodda qamandi oo ka hawl yar walayna haystaa beeralayay waxa la leeyahay moos meedhan iyo siligumaa lagu xidhay waxba laga beeri maayo waxa maanta la tijaabinayaa go'aana oo wasiirkuna nagu amray in sanadka ciddii wax beeri weyda sidii amarka madaxweynaha dhulkii la dawladdu kala wareegayso oo noqonayo dhul qaran taana lagu xisaabtamo kormeerku badanaya sida wax loo beerayna way soo kormeerayaan oo aan ku dabagelaynaa wixii aqoonana beerada way kordhinayaan beerahaydu ku imanayaan wasaaraddu xoogaa siday keenaysa annagu haddaan wasaarad ahaanahay ma annagu dhulka ma beero laakiin waxa beeralayda annaga xilkana saaran waxa weeyaan hogaamin xagga cilmiga haddii xasharaad tahay haddii xilliyada la beeriyo inaan ku hagno beeralayda dhaqaalihii wadanka maanta waxa weeyaan wuxuu maraya halkii ugu hooseysay laakiin waxaynu kaga kaban karnaa ee aynu ku soo kicin karnaa ee aynu dhaqaale abuur ku samayn karnaa ee aynu shaqo ku samayn karnaa waynagoo wax soo saarkeena iyo beeraheena dib u tabcana dhankooda waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah beeralayda Gobolka Togdheer dalka waa la soconaa duruufihiisa waa sarcaynaa waa dadaalaynaa insha Allah ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaanu tacabka nagu qasaarayn anigu waxaan ka mid ahay bulshooyinta beeralayda ah ee wax beerta waa beeraynaa waa beeri jiray anigoo ka wakiila beeralayda Togdheer anigu xoolo badan baa galiyay dhulka beer laba beerood oo waa midna shaleelo ku leeyahay midna halka barco ku leeyahay dhulku wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo dadkan iyo gobolkana wax la qabo in wax la beerto dhulkana wax la gashado ayaan kula barbar taaganahay waxaan leenahay dhamaantiin aynu si garab taagno sideen wax u beeran lahayn Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Telefishinka Universal magaalada Beeraha.